السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا خالق أمان والودافع عالم كجسبنتين وحايدين ليهاي قلب ونكسن waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo wax yar oo ku saabsan Soomaalida qaabka ay sadaqada ula baxdo. Marka hore Soomaalida waa dad aad iskugu gargaara, wax istara, iskaalmeeya markii laga fiiriyo dhanka kaliya ee wanaaga ay kaga fiican yihiin caalamka. Balse waxaa ku jira qaladaad aad u tiro badan. Walaalaha Soomaaliyeed ee dadka wax siiya ama dadka wax u qaybiya waxaa wanaagsan sadaqada dadka aad siinaysaan in aadan tusinina lacagta kaamirada iyo dadka kale. Waxaa wanaagsanaa lahayd qofka in aad bashqad ugu ridaan ama aad u qarisaan, aad tirahdaan walaal intaan waxaa waaye ilaahay iga soo qaaday ama dad walaala muxsiniina soo dhiibtay intaan maanta ilaahay kuu barakeeyo. Inkastoo ay hal maalin quudanayaan laakiin aysan waxba wax kale u sii tarayn, laakiin halkaas maalin ay u dhaanto waxaa fiican in sadaqadu sideedaba gacanta aad ku bixinaysa maahane gacanta kale aysan arkin. Laakiin maanta Soomaaliya waxaa ku soo badanaya dadka lacagaha dadka siinaya oo kaamirada ay daba socoto ayagoo lacag 100,000 oo shilin Soomaaliya u taagaya haddana waxaa waaye qofkaasna uusan diidi karin lacagtii uu maanta la siiyey uu asagoo meesha u fadhiyo ay tahay inuu maanta wax un helo haddana la duubo oo macnaha baraha bulshada lasoo dhigo. Sadaqadu sideedu waxay ku fiican tahay in ay qarsoon tahay. Walaalaha Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay sadaqadu dadka masaakiinta ay siinayaan ay u qariyaan, ay sida hoosta ugu dhiibaan. Lacag qof soo dhiibtayna magaciisa in la sheego inkastoo aysan habboonayn oo aamin darro maanta ay jirto, balse waxaa fiican in sadaqadu sideedaba ay qarsoonto. Midda kale walaalaha Yemeniyiinta ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa mar dhoweyd markii daadadkii roobkii ay magaalada Muqdisho ka dhaceen waxaa lala soo gaaray xoogaa kaalmo ah, balse kaalmadii loogu talagalay dadkii ugu talagalay in ay si saxan ugu qaybiyaan uma aysan helin. Oo waxaa waaye lacagtu waa dadkii laga soo qaaday iyo dadkii loo waday dhexdooda ay ku luntay. Marka masaakiinta ay cabanayaan, waxaa loo baahan yahay dadka taajiriinta ah ee lacagta haysta ilaahay wax siiyey, waxaa loo baahan yahay dadka wax ay wax ku qabsan karaan in loo abaabulo. Ma fiicna in lacag yar oo $100 ah oo maanta lagu gudbo laakiin berito qofka uu ka baahan yahay jugjug meeshaada joog oo yahay oo weliba uu baahidiisu sii badanayso. Balse waxaa fiican haddii dadka wax la taraayo in xirfado la baro, waxay wax ku shaqaystaan gacanta loo gelsho oo markaas ayaga wax istaraan sida hadda meelaha qaarba ay ka jiraan. Hadda mithaal idinkugu soo qaato yarka Imaaraatiga ee wejigiisa qarsoon ee dadka masaakiinta ee caawiya, qaabka u caawiyo waa qaab maasha Allah ah. Inkastoo xayeysiin ay kaga dhigan tahay dhabarka laakiin qaabka wax u bixiyo waa qaab wanaagsan. Dadka uu imaanaya uu wareysanaya asigoo wareysiga hore uu haystay laakiin uu sii wareysanaya xaqiijinaya ka bacdi lacag qofku wax u taraysa iyo guri hadduu ganacsi u baahan yahay guri haystana ganacsi loo sameynaa. Haddii uu maxaa lahaa
maxaa la lahaa guri u baahan yahay in guri waa la siiyaa ganacsina waa loo sameeyaa qofkaas in ilaahay mar kale ka qaada maahine waxaa waaye baahi bini aadan dambe ma qabanayso marka walaalaha Soomaaliyeed waxaa laga codsanayaa inay sidaas camal sameeyaan ayna dadka masaakiinta ee lacagaha siinayaan aysan banaanka soo dhigine ay xoogaa ay u qariyaan oo qaab wanaagsan ay ula hadlaan marka waxaan idin leeyahay khayrka aan u orodno wanaagana aan ku dadaalno insha Allah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.